السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الولي محمد أبو بكر ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتر كا سيدو كلام مولتي ميديا muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa sidee muuqaal aad soo duubatay aad u saari kartaa logo adigoo ka ilaalinayo in lagu sameeyo muuqaalkaaga wax lagu magacaabo copyright. waxa dhici karta qofka markuu weydinista yahay ama aroosyada uu duubo ama xafladaha uu duubo dadka badankooda waxa arkaysaa waxa saaran wax lagu magacaabo logadaas oo ay ka saarnaan karto bidix midig ama dhaxda ama qaybta hoose ama qaybta kale dhinaca midigta ah. maanta marka muuqaalkeena waxaan ku qaadan doonaa sidee logadaada aad u saari kartaa muuqaal walbo aad markaas u baahan. haddii aad tahay qof inagu cusub maxaa inoo diiday inaad inoo saarto subscribe-ka sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno. sidaan hore u soo aragnay waxaa xasuusataa cashirkii aan hore u soo dhignay oo ahaa 15 shay oo ama 15 macluumaad dheeri ah oo aad ka baranaysid VLC. haddii aad tahay qof aan hore u daawanin fadlan dib u raac muuqaaladeena waan soo dhignay kadibna meesha ka daabo si aad loogadii u saaran lahayd muuqaalka VLC-ga. isla qaabkii ayaan maanta mareynaa balse waa ay ka duwan tahay because waxay ugu duwan tahay waxay tahay waxaad duubatay muuqaalkaas waxaad u baahan tahay inaad dhigto barta ama weydinada qofka duuba ama aroosyada qofka duuba ama xafladaha qofka duuba waxaad ugu talagashay marka inaad copyright-kaas aad ilaaliso si micnaha aad u sheegto kambaniga duubay inuu yahay kambani noocaasa qaab noocaasa ayaad u samaysay. okay maxaan sameynaynaa marka fadlan waxaan kuu sheegayaa haddii ay dhacdo dhaxbartanka haddii logadaada u diyaarsan yahay qaabkaas waa okay haddii u diyaarsaneenna waxaa muhiim ah inaad hadda diyaarsato adigoo isticmaalayo Adobe Photoshop. way dhici kartaa inuusan kugu jirin Adobe Photoshop. haddii ay dhacdo inuusan kugu jirin Adobe Photoshop waxaan ku siinaynaa Janice kaas oo ah waxay noo soo diraysaa logadaada waxaan kugu diyaarinaynaa dhowr qaab ay ka mid tahay dhinaca midig dhinaca bidix midig qaybtiisa hoose bidix qaybtiisa hoose iyo centerka iyo sidoo kale asigoo ah transparent kan centerka ah because of haddii aan transparent ka dhigin ama aadan iska soo dul bixinin videogaaga waa lagu caajisaa. soo marka waxaa sameynaysaa waxaan ku siinaynaa gmail-keena waxaan dhex dhigaynaa muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa waxaa ku yaalo gmail-ka ayaad ku dhufanaysaa halahaas ayaad inoogu soo diraysaa logadaada waan kuu soo diyaarinaynaa isla markiina waxaan kugu soo celinaynaa isla gmail-kii aad markaas inoogu soo dirtay. fadlan ha isku dayin logadaada ama waxa aad rabtid in lagugu shaqeeyo inaad inoogu soo dirto WhatsApp. haddii ay dhacday inaad WhatsApp-ka ku soo dirto kuma caawin karno. okay halkan waxaa inoo furan Photoshop. waxaan u baahannahay marka inaan samaysano logadii oo aan rabnay inaan saarano booski. halkan waxaa inoo yaalo logo qaybta labaadna waxaa inoo furan logo kale. okay inta aadan logada diyaarinin sidoo kale waxaa muhiim ah haddana muuqaalka aad rabtay inaad saarto waa nuucma waa ina iyada naftirkeeda aad fikirtaa. waxaa dhici karta marka filinka ama muuqaalka aad rabtid inaad saartid inuu yahay 720 1080 sidoo kale 4K 5K 6K 8K intaba waad saari kartaa. okay laakiin waxaa muhiim ah marka logada marka aad diyaarinaysid inay qaababkaas kugu diyaarsan yihiin. haddii ay dhacdo marka inuusan qaababkaas kugu diyaarsaneen I'm sorry aad ayaa ugu lugo'aysaa. marka waa inaad ogaataa muuqaalka aad rabto inaad ka shaqayso propertieskiisa. waxaan rabnaa marka inaan ku tusno sidee muuqaalada ani aan hayo aan ku ogaan karaa propertieskiisa. very simple. okay kanaan iska xirno. okay waxaa halkan inoo furan video folderka koowaad waa 1080 maybe 720 sida hore ma ahan xogar waa laga soo gudbay inkastoo hadda aad loo isticmaalo 1920x1080. okay muuqaalka koowaad waa 1920x1080. sideen ku ogaaday muuqaalka ayaa dul tagaysaa right click ayaad leedahay kadibna waxaad dooranaysaa properties markaad dooratid kadibna qaybta kore ama taabisyada kore waxaad ka arkaysaa meel ay ku qoran tahay detailska ayaad ku dhufanaysaa. halkan waxaa ku arkaysaa waxaa u taqaanaa landscape portrait. marka waxaa arkaysaa marka width and height-ka inuu yahay 1920x1080
muuqaalkan waxaan ku ogaanay inuu yahay 1920 times 1080 ko waxaan laga rabaa marka inaan diyaarsano 1920 times 1080 okay muuqaalka labaad muxuu noqonaa haddii aad tahay qof 4K ku shaqeeya sidoo kale muuqaal halka inoo yaalo asna waxaan leenahay right click kadibna waxaan leedahay properties kadibna waxaa ka dooranaysaa detail asna waxaa arkaysaa 3840 lagu dhuftay ama qaybtiisa hoose macnaha 300 iyo waa 3840 hoostaana wuxuu noqonayaa 2160 qaabkaasna waa 4K okay sidoo kale halkan waxaa inoo yaalo 8K waxaa arkaysaa muuqaal inuu halkan inoo yaalo right click ayaad leedahay kadibna properties ayaad leedahay kadibna detail ayaad leedahay asna waxaa arkaysaa 7680 lagu dhuftay ama 7680 lagu dhuftay 4320 okay waxaan rabnaa marka dhowr steps kaas inaan sameysano balse waxaa dhici karta adiga muuqaaladaada inuu ku kooban yahay kaliya 1920 times 1080 okay waxaan kicinaynaa Adobe Photoshop marka sidatan u taagan tahay waxaad furaysaa file menu halkaana kadib waxaad furaysaa new marka aad doorato waxaad qaybta kore ka arkaysaa film and videos halkan waxaad ku arkaysaa HD TV 1080p okay no matter B dooro ama I dooro isku mid waa inkastoo anaga B aan anaga inta badan ku shaqeyno insha Allah waxaan qaadan doonaa cashiro waa maxay 1080p waa maxay 1080i waxaas oo dhan waan qaadan doonaa insha Allah haddii aad tahay qof waxyaalahaas xiiseenayo fadlan channelkeena ugu soo biir haddii aad tahay qof inagu cusub qof hore inagu jira haddii tahayna fadlan inala soco okay waxaan dooranay 1080 waxaa dhici karta marka Photoshopka anigu ku shaqeynayo iyo Photoshopka adiga ku shaqeynaysid inay kala duwan tahay okay haddii Photoshopka uusan qaabkan ahayn anaga hadda waa 2020 waxaan ku shaqeynayno haddii ay dhacdo marka Photoshopkaaga inuusan qaabkan ahayn sidee ku xalinaysaa waxaan ku xalinaynaa waxaan ku celinaynaa Photoshopka ayaa waxaan ka dhigaynaa sida caadiga oo interface-ka ee dadka yaqaaneen okay interface-ka ee dadka yaqaaneen ayaan dooranaynaa ama general qaybta ugu sareeya waxaan ka dooranaynaa use legacy ayaan leenahay marka sida legacy-ga caadiga okay hadda aan furno file menu kadibna aan furno new waxaa taqaanaa qaabkan sida caadiga waxaan u maleynayaa marka dadka 20ga u soo guuray inay xoogar ku wareeraan aniga inkastoo aan ka jeclahay qaabka day bilowga ha laakiin qaabkan waxaan rabay inaan kugu tuso adiga si aad u fahanto marka anaga always waan kuu sheegnay waxaan diyaar u nahay inaan idin caawino okay halkan waxaa ku arkaysaa inuu inoo dooran yahay photo-ga ayaa furaysaa kadibna qaybtan waxaad ka raadinaysaa meel ay inoogu qoran tahay film and video ayaan dooranaynaa waxaa arkaysaa pixelkii aad markaas u baahan tahayba inaad isla markii ka arkayso qaybta size-ka ayaan furaynaa waxaa ka arkaysaa punch staffyo badan markaas waxay ku xiran tahay qaabkaad adiga u baahan tahay 8K waa ujeedaa ilaa iyo 8K waa haysanaa you don't have to worry haddii ay dhacdo Photoshopka kii hore inuu yahay no matter 8K resolutionkiisa waa 81 adiga numberka had soo arkayso 70 iyo saasaas ahaa ilaa 80 waa 8K no matter okay anaga hadda waxaan dooranaynaa marka HD TV 1080 okay sida uu yahay ayaan waxaan ku leenahay haddii aad jeceshahay high quality waa dalba kartaa resolutionka waxaa ka dhiganaynaa 300 wax weyn ma ahan resolutionka aan ka dhigana 300 okay waxaan rabnaa marka themeskan hadda diyaarinayno inaan save garaysano okay waxaad furaysaa qaybtan ay ku qoran tahay save preset kliga ayaa ku siinaysaa waxaa arkaysaa inuu download box inoo soo baxayo waxaan ka dooranaynaa marka 1920 times 1080 pixel bx saadi u fahmi kartid pixel ayaan ka dooranaynaa okay waxaan leenahay marka resolution aan ka soo gaabinayna res kadibna waxaan leenahay 300 okay save haddii aan dhahno hadda kadib uma baahnin haddii aan furno halkan oo aan meelo kala doorano halkan haddaan furno qaybta kore waxaa ku arkaysaa 1920 times 1080 pixelka uu ka yahay kabacdina resolutionkeena oo aad kasii arkaysid inuu inoo noqonayo 300 okay ayaan leenahay kadibna okay ayaan leenahay magacaarta u baxsan kartaa no matter wax weyn ma ahan same okay waxaa arkaysaa marka 1920 times 1080 marka 300 aad ka dhigto xogeer waxbaa rabaa inaan kuu sheego 1920 times 1080 marka failkan ka soo dhigto fiiri waxaan dooranaynaa midka caadiga ah aan ku tuso file menu waxaan leenahay new halkan ayaan furaynaa waxaan ka dooranaynaa film and sidoo kale kan kadibna waxaan leenahay okay hadda waxaa arkaysaa in riigmo ayaa arkaysaa kii horena riigmo kuma arkaysid macnaha waxa kaliya ku kala duwan yihiin waxay tahay kan
waxaad bedeshay resolutionka mar walbo resolutionka aad wax ka qasto automatically waxa arkaysaa wax lagu magacaabo rulisyadan oo halkan uu ku imaanayo in uu luminayo marka waxa ku xiran tahay qaabkii aad markaas u baahan tahay marka adiga joyska hadaartid 300 ka dhigo hadaad 300 ka dhigato resolutionka ciladana arkaysaa balse waxay xalin kartaa very simple qaab fudud ayaad u xalin kartaa okay cashirka inuu nagu dheeraado ayaan diidayaa okay waxaan ku laabanaynaa keenii hore kan 300 waan iska xireynaa oo waxaan rabaa inaan ku tuso qaabka 300 na sidaad ku xalin lahayd anagoo aan speed gareynayno okay waxaan soo qaadanaynaa loogada ayaan drag and drop soo sameeynayna waxaan dul keensanaynaa booskii oo markaas inoo furneed okay waxa arkaysaa loogadii inay inoo soo saarmatay sida hore kugu sheegay always isku day sabir hada soo geliso looga aad soo geliso shay walba aad soo geliso inaad failkaas aad ka dhigto convert to smart object si aad ugu dhigto waxa sameynaysaa sabirkii aad soo gelisay ayaad right click leedahay kadibna qaybta kore waxaad ku arkaysaa convert to smart object kaliya aad ku siinaysaa sabirka sidaas ayuu noqonaa waxa u diidayo waxay tahay resolution kaaga inuu ka lumo okay kadib waxa leedahay control t zoom ka ayaad gadaal u laabanaysaa ileen waxaan rabnaa inaan kula jimeeno booska saxda fadlan iska ilaali haddii aad photoshoopyada hore isticmaalaysid sida hore kuugu sheegay isku day inaad shift aad la qabato haddii aad 19 ama 20 aad isticmaalaysidna uma baahnid inaad shiftiga qabato okay waan yareynaynaa until inta isdhigi karno wuu ka qurux badan yahay okay waan soo qaadaynaa drag and drop waxaa la rabaa marka tviyada badana waa aragtaa u malaynaa anagoo meel dheer aan ka raadinin tusaale yar okay tusaale yar hadda halkan waxaan ku haynaa mobile waxbaa rabaa inaan ku tuso haddii ay dhacdo loogadaada inaad saarto halkan ama meelahan meel ka mid ah aad saarto loogadaada oo aadan ku aadinin halkan maxaa dhacaya waxa dhacayaan ku sheegaa muuqaalka markaas sida tan okay insha Allah asayna telefonkan waa S20 Ultra insha Allah iyadan waxaan ku qaadan doonaa 10 oo aan ka soo jeedin doono waxa uu leeyahay featureskiisa iyo waxyaalahaas oo dhan okay halkan waxa inoo yaala muuqaalka marka aad dhahdo fit ayaan ku sameynaa waxa arkaysaa marka gacmihiisa hadda si caadi ayaad u arkaysaa okay saan markuu yahay loogadaada waa la arkaa okay dadka qaarkood isku mid ma aha anigoo kale waxaan jeclahay inaan ka dhigto full markaan ka dhigto waxa arkaysaa inuu zoom in sameynayo wax yar zoom ayuu galaa waa arkaya umaleena zoom ayuu galaa okay zoom markuu galo marka haddii loogadaada ee lunta ka waran aad foolxumo u tahay halkan waxaad ka arkaysaa inuu loogadiisa u saaran yahay so see lagu xaliyay waxa lagu xaliyay waxay tahay marka aan iska xirno muuqaalka okay maxaa lagu xaliyay waxa lagu xaliyay waxay tahay muuqaalka halkaana ayaad waxaad keenaysaa halkan okay halkan markii aad keento muuqaal walba oo aad saartid filinkaaga haddii zoom la dhawo xataa waxaad arkaysaa in loogadaada booska ugu fiicneed inay saarmayso okay kan waxaan saarna marka qaybta midig ee dhinaciisa hoose ah okay sidan man ku save gareynaynaa maya waxa sameynaysaa backgroundka qaybtan hoose ayaa dooranaysaa kadibna waxa leedahay delete iska bixi waa in uu darbigaaga noqdaa sida tan ee hadda shaashada kaaga muuqata okay markuu sida tan inoo yahay waxaan sameynaynaa waxaan furaynaa file menu kadibna waxa leedahay save as markaad tiraadid kadibna halkan aan keeno okay kadibna waxaad dooranaysaa save as on your PC kaliya aad ku siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa destinationkii aad markaas u baahan tahay hadda anaga waxaan isticmaalaynaa maanta waxaan isticmaalaynaa qaybta documentska ah waxaan dooranaynaa new folder oo halkaana kadibna waxaan ku qoranaynaa pro production waxaan leenahay marka film logo because si aan u ogaano macnaha folder walbo hadduu organize ku yahay waxaa ku sahlanaanayso wax alaala waxaad u baahan tahay booskaad ugu baahan tahay inaad ugu tagto okay kan ayaan ku qoranaynaa double click ayaan siinaynaa kadibna waxaad furaysaa meeshan ay ku qoran tahay save as type click aad ku siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa png markaad doorato ka bacdi magacaad rabto u bixi aniga hadda waxaan u bixinaa write down kaas ugu fudud write down logo okay sidiisa ayaan waxaan ku leenahay save kadibna waxaan leenahay largigiisa aan ku dhaafno kadibna waxaan leedahay okay hadda waxaan save gareynay dhinaca midig hoostiisa no matter all of them sidaas ayaa ku wadaysaa okay aan qaadno sidoo kale aan geeno qaybtan okay asigana waa sidan asigana waxaa sameynaysaa file menu marka iska ilaali frameyada inaad ka baxdo haddaad frameka ka baxdo
muuqaalkaaga marka zoom la dhaho absolutely aad waxaa arkaysaa dhalo weyn oo kale dhalada TV-yada oo kale mar walba uu weyn yahay TV-yada marka aad fiirsanaysid loogada booska sax uu ku aadan yahay maxaa keenay guideline ay aad u isticmaalaan okay asayna waxaan sameynaynaa kan ayaan leenahay save as waxaan dooranaynaa destinationkii aad markaas u baahannahay halka ayaan furaynaa kadibna waxaan dooranaynaa PNG okay waxaan u malaynaa marka right waan dooranay marka hadda tookadan waxaan leenahay right up waa qaybta kore waxaan leenahay marka logo waxaan rabnaa marka A to Z ka inaan sameyno okay A to Z ayaan sameynaynaa muuqaalka waan speed gareynaynaa okay waxaan diyaarinaa marka bidixdii midigtii iyo midig aan ka diyaarinay kor iyo hoos bidixna aan ka diyaarinay kor iyo hoos waxaa inoo soo hara marka midka dhexda ah kan inaad soo qaado centerka waad keeni kartaa awood waad u leedahay inaad centerka keento kadibna aad tiraahdo control T kadibna aad weynaysato awood waad u leedahay haddii sidoo kale aad u baahan tahay qaybtan kale oo ah landscape-ka awood waad u leedahay sida haddoo kale asna inaad usoo diyaarsato waad dareemi kartaa isla qaabkii hadda baad maraysaa marka dhaxda markuu sida tan yahay isla sida uu yahay kuma sameyn kartid waxa waajib kugu ah ama qasab kugu ah inaad sameyso new layer oo halkaana kadibna aad loogadii qaybta kore marka aad geyso kadibna aad ka yareyso opacity-ga until inta isdhigi kartid uu ku qurux badan yahay balse copyright-kaaga qaabka ugu fiican wuxuu noqonayaa inaadan dhaafsiinin okay inta waxaan ka dhigaynaa marka 20 okay sida tan waa bello waxa arkaysaa marka inuu xogar kula qurux badneen qaabkan because of filimka marka aad saarto uu qurux badnaanaya ha ka walwalin sida uu yahay ayaan ku save gareynaynaa waxaan furaynaa file menu halkaana kadib waxaad furaysaa save as sida caadadii inoo ahayd waxaan furaynaa halkan kadibna waxaan leenahay center ayaan ku magacaabeynaa okay waxaan furaynaa documents I think inaan ku magacaabnay yes sida uu yahay ayaan ku leenahay center okay hadda muuqaaladeen oo dhan ama imajyada aan isticmaalnay oo dhan wuxuu u diyaarsan yahay meel walba aad u baahan tahay okay haddii ay dhacdo marka quality-gii waxaa inoo soo haray oo aan hadday ka sheekeynaynay oo ku saleysnaa muuqaalka wuxuu ku saleysnaa haddaa xasuusato waxaa jiray waxaan dhahnay in haddii resolutionka aad 300 ka dhigto sidee u xalin kartaa waxaad u xalin kartaa inaad furto file menu-ga markii aan furno oo new dhahno aan halkan furano aan soo dalbano qaabkii hadday no matter wax weyn ma ahan waxaa sameynaysaa add a new layer-kan ayaad dooranaysaa kan isha ayaad ka qaadaysaa si aad u aragto layerkii aad dooratay kan ayaad dooranaynaa alta adoo haayo ayaa waxaa leedahay backspace markaad tiraadid kan ayaad soo qaadaysaa ama waxaad soo qaadaysaa kii hore ama loogadii aad markaas haysatay waxaan u malaynaa inuu kan inoo ahaa marka aan ku celino control Z okay sida uu yahay ayaan ku soo qaadayaa drag and drop halkan ayaan keenayaa booskii aan u baahanahay ayaan ku duldeynaa automatically wuxuu fit ku noqonayaa booskii ee aad markaas rabtay waxaan u malaynaa qaabka 300 na waa aad fahamtay okay waxa inoo yaala marka halkan aan iska minimize gareyno waxa rabnay marka muuqaalkii waxaan rabnaa inaan sameysano muuqaalkii inaan saarano waayo hore waxaan u soo aragnay in loogadaadii aad soo diyaarsatay waxaan rabnaa marka inaan saarno muuqaal halkan waxaa inoo kacsan Adobe Premiere Pro waxaa arkaysaa hadda halkan inuu saaran yahay muuqaalkan waxaa inoo diyaariyey horta aan idiin daara muuqaalka waa muuqaal ay ku goobteen saddexdeeda wiil waxaa ku goobtay Cabdifataax waxaa ku goobtay Cadnaan waxaa ku goobtay Maxamed waxay ka soo saareen video aad u qurxoon waa video oo muddo laga joogo aan inta lagu soo koobi karin muuqaal yar oo markaas casuumaada oo ay ciid ahayd marka muuqaalkaas iyaga diyaariyeen marka waxay rabeen inay ka diyaariyaan 10 kadibna ay rabeen inay idin soo wadaagaan okay horta waxa halkan inoo yaalo loogadii waxa arkaysaa loogadii inay halkan taalo okay waxaan furaynaa project waxaan soo gashanaynaa marka loogooyinkii ee aan rabnay markaas inaan saarano muuqaalkii okay kan ayaan wax yar hoos geysanaynaa inta ayaan double click siinaynaa waxaan soo gashanaynaa marka loogooyinkii okay waxaan furaynaa marka I think document inuu ku jiro kadibna aan import soo dhahno okay waxa inoo soo gala marka loogooyinkii halka inaad furaysaa waxa arkaysaa centerka way inoo saaran yahay halkan
okay waxaa arkaysaa marka left down okay kan ayaan hiding ku samaynayaa si aan disable gareeno kan ayaan soo qaadayaa waa left waan saarayaa kaliya fiiri waxaa arkaysaa automatically in uu fit ku noqonayo marka midigta saar bidixda saar dependent waxay ku xiran tahay qaabkii aad markaas u baahantahay waxaa arkaysaa midig bidix intaba inay same yihiin dhaxda saar midig saar bidix saar wixii markaas aad u baahan tahay marka qaabkan waa qaabka ugu fudud ee aad ku diyaarsan lahayd loogadii qaabka aad u saari lahayd muuqaalkaaga okay muuqaalka ayaan balay gareynaynaa in la daawo maleyna marka ina ka bogateen muuqaalkii waan jecleen inaan muuqaalkan iyaga qaabkay u edit gareeyeen inaan ka wareysano balse meelo kale anagoo wax ka fiirinayno ayaan awood u yeelan weyne balse waxay noo ogolaadeen muuqaalka as project ahaan inay inoo siiyaan kadibna aan tixraacno meel walbo sida bidka u raaceen iyo qaab noocaas waayo waxay la socdeen casharkii hore aan usoo dhignay oo ahaa sidee slow motion aad ula raaci kartaa teembadaada marka kana waxay dhaheen marka project ahaan bal aabo inoo ogolow inaad dadkiina ula wadaagto marka insha Allah casharkaana way noo soo socdaa qaabka projectiga loo edit gareeyay ay u sameeyeen macnaha qof walba fikradda uu keenay iyo ileen waxa dareemaysaa wax yar ka bacdi effect inuu soo galgalayo wax noocaasa insha Allah casharadeeni dambe ayaan ku qaadan doonaa ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay waxaan ka codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalka hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo dhigno anigu waxaan nahay qofkii ku bari lahaa adiguna waxaa tahay qofkii bartay waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh